intaanad boon iyo London baaxadeedii iyo Toronto bilicdeeda ka sheekayn horta barashada dhulkaaga bariya la isku hawlaa waa barnaamij aan idinku talagalay in aanu halkan idinka soo deyno barnaamijyadaasi oo ka noqon doona kuwo kala gedisan haddaba daawadayaal magaalada Hargeysa oo aad kolliiba aad si weyn u taqaanaan sida la filayo ayaanu halkan idinka soo gudbin doonaa waxyaabaha ka dhacaya magaalada Hargeysa qaar kamida وانيغا ودياريها برنامجك عبد الله محمد علي iyo idaacadan oo ah Somaliland Cable Television oo idin leh ku soo dhawaada barnaamijkan hubantiya in caasimad kasta oo dal kasta uu leeyahay ay astaan u tahay bilicda uu dalkaasi yahay sida waxyaabaha ka jira caasimadu waxay yihiin kuwa muujinaya dalku heerka uu taagan yahay magaalada Hargeysa waa magaalo taariikhan horseed u ahayd dhammaanba markay noqoto meelaha ay ku dhaqan yihiin dadka loo yaqaan Soomaalidu haddaba jamhuuriyadda Somaliland oo magaalada caasimada u ah waa magaalada Hargeysa ayaa waxay tahay magaalo runtii si weyn bariyahan dambe isku soo bedeshay atiyo sabab u tahay isbedelkeegaasina marxaladihii kala duwanaa ee guud ahaanba uu soo maray dalka jamhuuriyadda Somaliland magaalada Hargeysa haddii aad ku nooshahay ama aad booqashaba ku timid waxaad arki kartaa sida ay magaaladu isu bedeshay dhinaca burburkii ka soo gaaray dagaalkii lagu xoreeyay jamhuuriyadda Somaliland iyo dhinaca kale waa horumarka dambe ee ay la koosatay sanadkan aynu ku jirno hubantiya in magaalada Hargeysa aan lagu soo koobi karin muuqaaladeeda cajalad iyo video amaba cable television ay idinka daawataan waxa aad ka bogan kartaa qura hadii aad joogto oo aad ku nooshahay amaba aad soo booqato muuqaalada aragtaan waa magaalada Hargeysa suuqyo kamid ah oo ay dadku si nabad ah u taxaashiyeen haddaba daawadayaal intiina ku daawanaysa magaaladan Hargeysa ee ugu talagalay in ay daawadaan muuqaalkani waxa uu yahay muraayad aanu dib idin tusayno sida ay tahay magaalada aad ku dhaqan tihiin iyo waxyaabaha ka jira sanadihii u dambeeyay magaalada Hargeysa waxay noqotay meel bilicdeedu oo ay soo bedeshay taasina ay sabab u tahay oo ay salka ku hayso nabadda ka xasishay jamhuuriyadda Somaliland guud ahaanteedba magaalada oo ah magaalo ay dadku si weyn ugu soo hirtaan taasina ay sabab u tahay fursadaha ka jira awgeed iyo dhismaha ka socda ayaa waxa uu yahay mid runtii si weyn loogu faano haddaba daawadayaal tiyoonu idinka cudur daaranayno inaanu idin dhamaystirno gabi ahaanba muuqaalada magaalada Hargeysa waxaase aanu door badnay inaanu qaybo kamid ah idin tusno umana baahnaan filaya inaanu halkan idinka sharaxno guryaha iyo waxyaabaha ay ishiinu aragto oo idinkuba kolliiba garan kartaan cajaladani waxa kale oo idin xambaarsan tahay waraysiyo googoos ah oo kooban oo aan la yeelanay dad ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa kuwa ganacsi ku haysta iyo kuwa mashaariic kale oo kala duwan ka wada sidoo kale waxaad arki doontaan sida ay magaaladu u caamiran tahay sidaan horeba u sheegay ujeedada aanu ugu talagalay inaan halkan idinka soo baahino magaalada Hargeysa waxay tahay bal in aad dib
u dheehataan muraayadda magaalada Hargeysa oo aanu idinka jeedno in aad aragtaan sida ay magaaladu tahay. magaaladan Hargeysa oo ah magaalada koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay si weyn u dhalarogtay oo ay isku bedeshay waa dhanka horumarka intii ka dambeysay deganaashihii ka dhashay dhinaca nabadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. taasina waxay abuurtay in ay ku soo hirtaan dad fara badan oo iyagu ka yimid qaybaha kale ee uu ka kooban yahay dalkeenu. waxaa magaalada ku soo biiray ganacsiyo fara badan kuwaasi oo keenay waxyaabo cusub oo aanay magaaladu hore u lahaan jirin. sidoo kale waxaa magaalada ka socda dhismayo aad u fara badan kuwaasi oo ah kuwo si qaab casri ah loo dhisayo isla markaasina ay gacanta ku hayaan dad aqoon u leh dhismaha. Hargeysa waa meel lagu soo hirto dadkuna ay u hanweyn yihiin. Hargeysa waa halka bulshadeenu ay ka hagmato. waa goobta ay fadhiyaan gebi ahaanba mas'uuliyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta hoggaanka u haya kaga soo bilow madaxweyne ilaa heer baarlamaan. waa goobta lagu soo hirto waa goobta u astaana Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hargeysa waa magaalo taariikh ku fadhida marka loo eego taariikhii aynu soo marnay sida waqtiyadii gumaysiga. magaalada Hargeysa waa bildaanta dalka, bilicdeeduna waa mid aan marnaba ka bi'i karin. muuqaalkan aad aragtaan waa halka loo yaqaano Hargeysa Kilaab oo ah meesha haatan loo bedelay ama si casri ah loo qurxiyay tiyo ay wasaaradda ganacsigu dalxiiska iyo ganacsiga ay ku hayaan faraha. waa hodeel aad ku soo degi karto haddii timaado qasho magaalada Hargeysa ama haddii aad jeclaysato bal inaad ka yara xaga baxdo halka aad ku nooshahay isla magaalada Hargeysa dhexdeeda. waxaa Hargeysa Kilaab ku yaala dhir fara badan oo aad u qurux badan oo ku soo jiidanaysa iyo qaab sallaxan oo si wanaagsan loo dhigay sida qaabka gawaarida aad u dhiganayso iyo goobaha aad ka qaadan karto waxyaabaha fudud ee aad u baahan tahay sida sharaabka iyo cabitaanka. haddii aad u baahan tahay inaad arrin ku fushato waa hubaal meel aad kullayba sheeko kaga bogan karto. bilaanta Hargeysa qof kasta waxa uu ku xasuustaa bridge-ka cagta oo ah mid runtii qof kasta oo reer Hargeysa uu had iyo jeer carabka ku dhufto. waa goobaha ugu quruxda badan magaalada Hargeysa marka aad lugaynayso. halkan aad aragtaan oo ah halka loo yaqaanay gobolkii ama fagaaraha weyn ee halka ay maanta ku taalo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa goobta ay ku badan yihiin xafiisyada Jamhuuriyadda Soomaaliland sida wasaaradaha kala duwan iyo xafiisyada kale ee iyagu qaabilsan arrimaha bulshada. waxyaabaha cajaa'ibka leh waxay tahay magaalada Hargeysa waa mid baryahan dambe ay aad u qaali garoobayaan guryaheedu. taasina waxa ay markhaati ka tahay sida ay magaaladu isu soo bedeshay isla markaasina ay dadku ugu soo badanayaan. haddii aad maanta damacdo inaad iibsato guri dirsan waxa hubanti ah in uu lacag badan kugu joogo. haddii aad jago bannaan istiraahdo dhisana waxa iyaduna ku kharash garaynaysaa runtii lacag badan. taasi waxa ay astaan u tahay daawadow sida ay magaaladu qiimo u leedahay. haddii aynu eegno magaalooyinka kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aad ka iibsanayso dhul ama guryo waa kuwa jaban. taasina waxa ay tahay heerka dhaqaale ahaan iyo qiimo ahaan ay magaaladu taagan tahay. magaalada Hargeysa waa magaalo marnaba aan la barbardhigi karin magaalo kale.
waxa hubantiya haddii aad magaalada Hargeysa eegto in aad arki karto dariiqyadu sida ay isku bedeleen taasi oo ay sabab u tahay isbedelka aadka u laxaadka leh ee runtii ku soo yimid magaalada Hargeysa haddaba daawadayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysiyo kooban oo ku saabsan ganacsiyada kala gedisan ee magaalada Hargeysa kuwaasi oo ugu talagalay in aad ka dhugataan waxyaabaha ka socda magaalada Hargeysa sida muuqaaladan aad aragtaan oo ah kuwa runtii muujinaya waxyaabaha runta ay ka jira magaalada sida dadka iyagu u xidhiman yihiin ee magaalada jooga iyo kuwa waalan ama kuwa tuugta ee magaalada booba haddaba magaalada Hargeysa oo runtii magaalo muuqaaladeedu ay kala duwan yihiin waxaanu rajaynaynaa bal in aad si weyn uga bogataan muuqaaladan idinku soo maqan horta iibka jaadka iyo siyaabaha magaalada soo iibsadaan iibka jaadka nimanka qaadka imka loo keenaa wayna fuulaan adigu miyaad ku cusubtay jaadka iibkiisa ma jaadka waa iibin jiray kala ka waran sida wax loo iibiyo iyo waxa soo galay niman cusub qaadka fuulaya adiga kuma weydiin dadka cusub waxaan ku weydiiyay qaabka wax loo iibiso qaadkan iibiyo waa fudiska waay marka ka waran iibkiisa imka aad buu noogu qaaliyaa annaga imisaad siisaan jaadka qaadka waxaan siiyaa xabadda way 8 waay waxaynu magaalada Hargeysa eegi doonaa dhowr meelood oo kala duwan sida xirada jaadka anigoo wareysan doona mas'uuliyiin ka mid ah jaadka ee dadweynaha soo ururay wad maasantiin Hargeysa waxa hubantiya in aad ula yaabayso muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa marka aad la dhex socoto kamarada tiyo la kulmayso wajiyeed oo kala duwan kuwaasi oo mid waliba aragti gaar ah ka qabo waraysiyada haddaba dukaankan oo ninkii haystay wax ka weydiiyay muddadii uu furnaa dukaankan waxa uu ku yaalaa ka soo horjeedka masaajidka ka soo horjeeda Horyatanka kaasi oo ah mid runtii ku yaala meel wanaagsan waxaanu igu jawaabay su'aalihiisii oo aan su'aalahan weydiiyay kamid ah jawaabihiisa sida tan meel kale ku yaala halkan waxa ka wadataa ganacsiga noocan oo siisaba meel kale oo ka soo guuray way jirtay meel kale oo ku naalay laakiin se imika halkan muddo waxaan degnay ilaa 6 bilood ka waran markaa suuq ahaan sidoo yahay suuq aad buu wanaagsan wallahi ma jira markaa dukaan kugu dhow ganacsi noocan kale way jiraan way jiraan macdar way waagayaan markaa taasi ma u dhimaysaa dukaankaaga waxa ay suuq oo ka sii wanaagsanaana mooyaane laakiin waxa u dhimaysaa ma jirto haddaba waxaad ka warantay magaalada Hargeysa suuqan uu ku yaalo oo ah Horyatanka agtiisa waxa la ogsoon yahay dukaano badan aanay ku hoolin oo camiranay si dadku aaminsan yihiin marka maxaad ku dhalan arrinta ayada horta way jirtay bariga hore way jirtay laakiin imika waa laga helayaa macdarada badan waa aad u camiran waa laalaha ay iibiya sidan ashaadan aan hayo oo kale way aad bad ma santay Cabdiraxmaan waxaynu eegi doonaa muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo qaybaha aad arki doontaan oo runtii kuwa aad u qurux badan marka dib loo eego waxyaabihii soo maray magaalada Hargeysa bal waynu eegno haddaba daawadayaal goobaha aan socodka gaaban ku maray magaalada Hargeysa waxa ka mid ahaa ra'iislahan ayaan oo isaguna aan ka fogeyn halkii loo yaqaanay Horyatan Hotel kaasi oo ninka haysta wax ka weydiiyay sida uu socdo ra'iisluhu iyo camirnaantiisa maadaama ay tahay meel wanaagsan halka uu ku yaala waxaad wax ka weydiiyay Xasan oo isagoo ah ninka haystay waxaanu igu jawaabay su'aalihiisii ka mid ahaa oo waraysigii ku bilaabay sida tan oo ah ra'iislaha ninka ka mas'uulka Xuseen ayaan su'aal ka weydiinay Xuseen waxa iga warantaa marka ugu horeysa ra'iislaha halka uu ku yaalo oo ay dad badan aaminsan yihiin in suuqu leeyahay suuqii hoose oo la isticmaalo inaanu camirnayn balka waran meesha waad nasan Cabdilaahi waxa weeyaan suuqa bartankiisii oo ayuu ka yaalo ra'iisku habeen iyo maalina sidaad aragtay buu buuxaa aad iyo aadna ummaddu raalli bay uga tahay ma ogtahay in wixii horumar leh inay maaragtay hadii goor ku soo dhawaadaan dadkuna aad iyo aad buu badan yahay waayo maalmii ugu horeysay meesha furnay dadka oo yar ayaan furnay
maantana meel la kala joogsado ayaa la laayay moogtahay waxaad iga warantaa muddo inta leegay meesha ku shaqeynaysay iminka berigii dagaaladii laga soo noqday 29kii baan meesha furnay marka ilaa maalinkaa maanta dadku wax soo kordha mooyaane wax dhinmayaa ma jiro maalinta baa la soo kordhaya maalmo dhowtay xoogaa ay dagaalada sokeeyo yar dhacay in yar baan ka yar maqnayn hase yeeshee markii dambe waa lagu soo noqday waad arkaysaa suuqa iyo heerada meesha magaceedana ayaan baa la yidhaha magacoona aragnay marka adigu maxaad adaba aragtidaad ka qabto maxay tahay ganacsiga noocan ama iyo camirnaanta magaalada waxaan ka qabaa aad iyo aad buu ugu baahan tahay meherada caynkaas oo kale ah in had iyo goor la badiyo oo la qurxiyo oo maaragtay lagu soo dhawaado maaragtay waayo ninna magaaladiisa isagoo qurxiyo mooyaan cid kale qurxiyo yurubna cid waxba u qurxin mayso ninba meesha joogo inuu nadaafadana ka shaqeeyo oo had iyo gooraali moogta u dadaalo dadweynaha u jajabnaado ayaan aad iyo aad u maaragtay way xuseen aad baad runtii mahadsan tahay waqtiga aad nasiisayna waad ku mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay way mahadsanid macmacalaha iyo cosmetic store ama qalabada la isku qurxiyo iibiya dukaankan oo iibiyaan dhalinyaro iyagu ah reer Hargeysa isla markaasina suuqa bartamaha magaalada Hargeysa ku iibiya bal aynu eegno waxyaabaha ay nagu soo kordhiyeen camirnaanta dukaanada noocani waa mid iska caadiya baryahan dambe magaalada Hargeysa waxaase hubantiya inaan dad badani aaminsanayn in sidan ay ka muuqato magaalada Hargeysa ama laga heli karo dukaano noocana bal aynu eegno haddaba sidaynu horeba u sheegnay dadka iyagu leh ganacsiyada noocana oo aan kala kulmay sida dukaankan Nagiib iyo kuwii hore aad hore la kulanteenba oo isagu waa ninka ka mas'uulka ah dukaankan ay aragtaan ayaan wax ka weydiin doonaa bal qaabka ay u socdaan ganacsiyada noocana iyo gebi ahaanba suuqa uu ku yaalo sida uu yahay baryahan dambe mukhtaar waxaad nooga warantaa maadaama dukaanku ku yaalo halka loo yaqaano suuqii hore oo ah dabcan u dhow hoteelka ama meesha la yiraahdo Horyatan Hotel nooga waran qaabka uu socdo suuqani iyo dukaanada noocan oo kale qaabku socdo waxa weeyaan si wanaagsan u socdo dukaanku qablaha si fiican ma u iibina aqabka iska socota cadashada kariimada hada suuqa aad biska wanaagsan marka waxyaabaha diibisaan ma waxyaabaha si weyn loogu baahan yahay ama mise waxyaabo dad go'aan ay iibsadaan may waa caadi ba leebsiyaa dhalinyarta waqtiga la socda waxaan waa la iska iibsadaa marka dukaanada noocan ma kuwa cusub oo waqtigan iminka isbedelkan dambe yimid bilaabmay ama soo kuwa hore u jiri jiray hada way jiri jireen laakiin tiimka aad u magaalada ugu badiyeen sida labada ay macaan marka adigu shakhsiyan muddo inta leeg ayaad ganacsiga noocan ku gudbisay anuu muddo adu hal sano hadaba mukhtar waxaad ka warantaa muddada sanadkaad ku guda jirtay ma waxay ahayd ganacsigaagu mid ku kooban qaabkan oo kale mise waxyaabo kale wuxuu ku koobnaa qaabkan isla markaasina dukaankan un baad ku iibinaysa suuqan mukhtaar aad baad u mahadsan tahay waxaan se ugu dambaystii ku weydiin lahaa aragtidaad ka qabtaa maxay tahay suuqii hore meesha loo yaqaano in haatan joogno aragtidu aad ka qabto adigu shakhsiyan suuqan wallahi suuqan dee aad buu wanaagsan aad baa lagu faraxsan yahay waldi suuqii hore lagu soo noqday oo caadi magaalada u taadee furan aad baad mahadsantahay mukhtaar bal haddaba aynu ka sii ambaqaadno halkaasi aynu eegno muuqaalada kala duwan ee magaalada Hargeysa oo aynu waxyaabo badan arki doonno magaalada Hargeysa meel kastoo aad joogtaba waxaad arkaysaa ganacsiyo kala duwan oo ay dadku ka ganacsanayaan haddaba dahabka oo ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan wax kastoo la iibiyo ayaa waxaad ka helaysaa suuqyada Hargeysa oo ay iibinayaan dumar iyagu aqoon badan u leh noocyada dahabyada iyo qiimayogooda waxaan hooyo ku weydiiyey dahabkan aad iibinaysaa qiimihiisu ma noocyo kala duwan buu leeyahay mise waa mid isku wada mid ah noocyo kala duwan buu leeyahay marka nooca ugu qaalisan magaciisa maxaa la yidhaha 22 ama 21 marka waa miisaanka miya ma waa miisaanna wuu yahay munadna wuu yahay marka dahabkani ma dahab aad ka keentaan wadamo fog baa mise waa kuwo aad soo karto waxa lagu shiilay ama lagu sameeyay dalkana waa lagu sameeyaa oo waxa soo saaray dahablayaasha iyada dabadana uu nooga yimaadaa marka iibku siduu yahay iibku waxa weeye 22 kuna waa iib 18 kuna waa iib waxa hubantiyay in dalkani soo gaareen dhibaatooyin far badan oo burbura ha noqdaan kuwo hanti ku luntay iyo kuwo dhaqaale ahaanba haddaba sidee bay u iibsadaan dadku maadaama ay dhaqaalu iska liito dahabka ma dadka dibadda ka yimid iibsada maya dalka iyaga jooga iibsada waa dalhoodana xoolaha ilaahay siiyey xoolahooda ay soo iibsadaan geel adhi kuwaasay markaas istaan dahabkooda marka way xidhaanoo si aad iyo aad u iibsadaan marka adigu aragtidaad ka qabto iibinta dahabku ma suuq fiican baa mise waa suuq iska liita aad buu wanaagsan yahay ma leeyahay xilliyo
xilliyuu leeyahay xilliyada roobku noo da'aan ee xooluhu noo naaxaan ayaanu iibsanaa dahabka way aad baad mahadsantahay magacaagana faadima hayaan dhowlaa la yidhaha aad baad mahadsantahay waqtigaaga siisay adaa mudan way intii aan socday magaalada Hargeysa socdaalka gaaban ku marayay waxaan la kulmay sidoo kale dadka iyagu ka ganacsada sarifka oo aan su'aalo ka weydiiyay waxaad arki doontaan jawaabahoodii ay iga siiyeen su'aalihii aan markaasi weydiiyay iyagu sariflayaasha magaalada Hargeysa gaar ahaan kuwa ku dhow halka loo yaqaano suuqii hore ama jidka weyn ee magaalada u kala gooshay dhinaceeda galbeed iyo dhinaca bari waxaad iga warantaan sarifka lacaguhu heerka uu marayo iyo isbeddelka ku yimid waxaa la ogsoon yahay inuu jiro sixir barar marka idinku ma la idinku tilmaami karaa dadka sixir bararka ka dambeeya waxay dadku hada jeer ku andacoodaan in sariflayaashu ay awood u leeyihiin inay joojiyaan sixir bararka maxaad ka odhan kartaa arrinta iyada inay joojiyaan waxaan ku oran karnaa annaku sixir bararka ma wadno dadweynaha Soomaaliland way kurtu la wada yihiin in dollarku kacay iyo in kale sideebad ku garan kartaan in dollarku kacay habeen bala wada kicin karaa habeen uu dhici karaa marka maxaa kiciya caadiyan joornaalku ku yeelaa dabcan joornaalku wuxuu ka soo xigtaa sidaan ay noo warameen sariflayaasha marka idinku sarif lahaan maxaa idin odhan kartaan annagu maxaan oran karnaa waxba way waxaad moodaa sarifnimada inaad ku cusub tahay miyaad ku cusub tahay walaal adigu walaalin badan baan joognay muddo intee leeg in baalan ka sanadii badan joognay way aad baad u mahadsanidin way sidii waxaan u jeedinayaa dhawaaqooda waa wada oo meelaha lagu iibiyo dharka loo yaqaano hoodayka ama dharka iyagu ay iibsan karaan dadka maxaysatada ah ayaa waxaan waraysi la yeelan doonaa in isagu ka ganacsada alaabtan oo ah Axmed Cismaan oo isagu saan tuunsanahay muddo dheer ku soo guda jiray hawlaha noocan Axmed waxaad nooga warantaa iibka noocan iyo waxyaabaha maaragtay dadku say u iibsadaan dadku walaal waxay u iibsadaan si fiican waxaanu ka siinaa qiimo aad u raali geliya oo ka jaban dharka marka loo eego Taiwan-ka waxaanay ka jecel yihiin dharkan oo original ah lama keeno dharkan waa badeecada ugu wanaagsan ee dadku aad u raali geliya reer magaalada adigu shakhsiyan muddo inta leeg bad ku guda jirtay dharka noocan anu walaal waxaan inta aad uga soo shaqeeyay meheradaha noocan oo kala muddo imika ilaa 8 sannadood ilaa 7 sannadood iyo bara ayaa shaqada haddaba dadku dhaqaale ahaan magaalada Hargeysa oo magaalada dalkeena ugu weyn dhaqaale ahaan waa magaalo runtii aad u qaaliya iibsigeega wax kasta marka sida tuusay magaalooyin kala duwan oo dalkeena ayaa la dhaaway ka dharjabayn sida magaalada Euro oo kale maxaad naga oran kartaa arrinta noocaas waxaan ka oran karaa dad baa qaba sidaa laakiin waxaan weeyaan run ahaantii xaqiiqadu waxa weeyaan dharka yaalla magaalooyinka kale ee lacagta Soomaaliland lagu isticmaalo ayaa ka jaban lacagta loo isticmaalo faqas way waad maasantahay adigu waxaan ugu dambeystii ku weydiin lahaa suuqan aad ku iibiso dharkan muddo inta leeg ayaad ku sugnayd anu markii hore waxaan ku sugnaa muddo aad u kooban waxaan ku iibin jiray suuqii hore la odhan jiray idaacadda halkana dhawaan ayaan imi waxaanan qabaa suuqii hore wuxuu xaafad laakiin halkan waxa weeyaan bartamihi magaalada waana bilicdii magaalada waana barta wax lagu kala iibsado marka kala duwanaanshihiisu siduu yahay xagga iibka suuqii aad ka timid ugu dambeeyay iyo kan imika aad ku soo noqotay oo markii hore aad joogi jirtay run ahaantii faraq weyn baa u dhaxeeya suuqaasi waxay ahayd magaalo markii hore dadku ku badnaa imikana uu ku yar yahay suuqana aad waa goobtii ganacsiga loogu talagalay waana ka wanaagsan aad baad mahadsan tahay waxaan ku rajaynayaa ganacsi wanaagsan mahadsanid way barnaamijka magaalada Hargeysa waxa kale oo ay la kowsatay in ay keento
qalabo cusub iyo kuwo hore u jiri jiray taasina sida ay ka mid yihiin qalabka laga sameeyey dhoobada oo ah qalabo iyagu hore loo isticmaali jiray kuwaasi oo dib loo soo saaray intii ka dambeysay deganaanshaha rasmiga ah ee jamhuuriyadda Somaliland qalabadan oo ka kooban noocyo kala duwan sida idanada lagu shito waxyaabaha uunsiga iyo kuwa kale ayaan wax ka weydiiyey dadka iyagu ka ganacsada alaabada noocan oo kale waxaanay waraysigii u dhacay sida tan soo socota sameeyay ama lagu sameeyay dalkeena oo sida dhariyada idanada iyo waxyaabaha kale farshaxanka ay sameeyaan dadkeena dalka Somaliland ayaan wax ka weydiiyey xalimo jaamac oo iyadoo ka mas'uula alaabada aragtaan oo ku iibinaysa bartamaha magaalada Hargeysa xalimo waxa iga warataa iibka alaabada waxay waxyaabaha dadku ay aad u jeclaystaan si waa waxyaabaha moodidina ay soo lahayn waa afka loo jeclaystaan waxa weeye alaabada waxay ka kooban tahay cuntada lagu karsado biyaha lagu qaboojiyo haraha wax lagu kariyo qofka faraawilka dumada waxay ka kooban yihiin marka ayaa sameeyaa si kooban iyo oran iyo xakameeyay dadkeena sameeyay dumarka Somaliland marka farshaxanka oo ka shaqeeya dumarka iska leeyahay ciidu waa dhulkeena dumarku waa dumarkeena waxa weeye marka iibinta alaabada noocan ay goormay soo shaacahay waxa soo shaacahay